لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا waxay yidhaahdeen suxaradii: yaa muusa muusow, imaa an tulqiya inaad tuurto ushaada, wa imaa an nakuuna inaanu ahaano awala man kan ugu horeeyo alqaa tuura annagu. qaala wuxuu cisiyuhum ulahoodii yukhayalu la moodsiinhayo ilayhi isaga xaggiisa min sixrihim sixirkoodii la moodsiin muuso iyo dadkiiba annaha iyadu tascaa inay roorayso. fa awjasa wuxuu dareemay fii nafsihi naftiisa muusa khiifatan cabsi buu dareemay muusa. qulnaa waxaanu nidhi buuhi alluhu: laa takhaf ha baqin muusow, innaka adigu anta adiga laclaa kan sarreeya ah. wa alqi waxaad tuurtaa maa fii yamiinika gacantaada waxa ku sugan, talqaf waxay guranaysaa maa sanacuu waxay sameeyeen. inamaa sanacuu waxay sameeyeen uun kaydu saaxirin sixir dhagartii. walaa yuflixu mana guulaysto assaaxiru saaxirku xaydu meesha ataa uu yimaado. fa ulqiya waxaa la riday asaxaratu suxaradii sujadan xaalayihin kuwa sujuudsan. qaaluu waxay idhaahdeen: aamanaa waxaanu rumaynay birabbi haaruuna haaruun rabbigiisa iyo wa muusaa. qaala wuxuu ihi fircoon: aamantum miyaydun rumayseen lahu isaga muuse qabla an aadana intaana idiin idmin lakum idinka, inahu isagu muuse lakabiirukum kiini ugu weynaa weeye, aladii kaasoo callamakum idin baraya sixra sixirka. fala uqaطicanna walle gooye oo gooye aydiyakum gacmihiina iyo wa arjulakum lugihiina min khilaafin isweydaar. wala usalibanakum idin salbiyo oo idin sudhe fii juduuci nakli timirta laamaheeda. walataclamunna waad ogaan doontaan ayunaa kaanagee ashadu daran cadaaban xagga cadaabka xanuun kulul oo wa abqaa baaqi ahaansho badan aniga iyo rabbi muusa waad ogaan doontaan. qaalu waxay idhahdeen suxaradii: bacdamaa aamanuu lan nu'thiraka ma doorayna bay idhaahdeen, kaama dooranayno calaa maa jaa-anaa waxa noo yimid korkiisa min albayinaati xaal uu yahay xujooyin cadcad, iyo waladii kii kaa dooran mayno fatarnaana abuuray, ama wallaahi baan ku dhaaranay aladii kii kaa dooran mayno fatarnaana abuuray. ee faqdi adigu xukun maa shayga anta adigu qaadin mid xukumaya aa tahay. inamaa taqdii waxaad xukumaysaa un haadihi tan alxayaata ee noloshii addunyaa ee dhoweyd. inaa anagu aamanaa waxaanu rumaynay birabbinaa rabbiga naga liyakfira inuu noo dhaafo lanaa anaga khataayaana gafafkanagii, wamaa kiina inuu noo dhaafo akrahtanaa aad nagu qasabtay calayhi korkiisa oo min asixri sixira. wallaahu ilaahay baana khayrun khayr badan xagga thawaabka, wa abqaa baaqi ansho badan. inahu shaaniya xaale man yaأti qofkii yimaada rabbahu rabbigii u yimaada allahaba keeniye mujriman isagoo gaal ah ama dembiila ah, fa ina lahu waxa uu ahaaday jahanamo naarta jahanamo la yidhaahdo. laa yamuutu mana dhimanaya fiiha naarta dhexdeeda, walaa yaxyaa mana noolaado. waman qofkii yaأtii u yimaada mu'minan isagoo alli iyo nebi rumeeyey, qad camila waqad camila sameeya asaalixaati acmaasha wanaagsanna, fa ulaa'ika kuwa lahum waxa uu ahaaday adarajaat alculaa darajooyinkii sarreeyey. jannaatu cadni nagaadiga jannadiisa uu ahaaday, tajri xaalay qulqulaysa min taxtiha jannada hoosteeda alanhaaru webiyaal khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannada dhexdeeda.
wadalika kaasina jazaau man qof abaalgudkii weeye tazakaa naftiisa tahiray. qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow imaa an tulqiya in aada riddo ushaada dhulka ku tuurto, wa imaa an nakuuna inaanu ahaana anagu awala man kan ugu horeeyo kaasoo alqaa ushiisa rida. qaala wuxuu ihi muuse alquu rida idinku, bal ee alquu idinku tuura. fa idaa waaba isaga oo way tuureen, fa idaa waaba isagoo markay tuureen xibaaluhum xadhkahoodii iyo wacisiyuhum ulahoodii yukhayalu la moodsiinhayo ilayhi isaga xaggiisa min sixrihim sixirkoodii la moodsiin muuse annahaa iyadu tascaa inay rooreyso abeesooyinkani. fa awjasa wuxuu dareemay muuse fii nafsihi naftiisa wuxuu ka dareemay khiifatan cabsi. qulnaa waxaanu nidhi laa takhaf ha baqin inaka adigu anta adaa alla calaa ka ugu sarreeya ahe, adaa sarreeya, adaa guulaysan. waxaynu ku soo jiray tafsiirkii suuratu taha, waxaan soo gaarnay aayadda 65. waxaynu ku soo jiray muusa iyo fircoon wixii dhex maray. waxaynu soo qaadanay oo darsigu maalintii dhaweyto uu ku istaagay isagoo la isu dhaartay oo la ballamay, la yidhi waqad aflaxa alyawma man istaclaa, waxaa maanta guulaystay qofka kor noqda kaasaa adkaaday. wuxuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu leeyahay kolkii la isu yimid yowmu ziina, kolkii la isu yimid ee dadkii oo dhan meel la isugu keenay ayaa muuse uu soo istaagay, fircoonna waa soo istaagay, suxaradiina way soo istaagtay iyagoo saf ah san soo maray. dadkii dadweynaha ee shacabka ahaana waa la soo ururiyey oo way fiirsan hayaan. waxay isku fiirsan hayaan labada qole ishaysa, dowladdii oo dhan madaxdeedii, suxaradeedii iyo rasuulka ilaahay uu soo diray subxaana wa tacaala, xaqa iyo baatilkii oo iska hor yimid oo iswajahay ayaa khalqigiina isku fiirsanaya. kolkii la isa soo hor istaagay ayaa muuse hadlay, wuxuu la hadlay suxaradii. muuse wuxuu yidhi ma idinkaa tuuraya waxaan aydun haysataan, ulihiinan iyo waxaan xadhkahan aada wadataan, ma idinkaa tuuraya mise anaa tuuraya bui horta ushayda, ma halkayga usha ahaan tuuraa mise idinkaa tuurahaya. ayib, hadalkaa markay muuse ku yidhaahdeen, muuse wuxuu ihi khiyaarka iyo doorka so-aani maydaani siinin, idinku tuura, idinku tuura oo idinku iga hormara, liannahu xaq iyo baatil isma hor istaagi karaan. baatilku wuu baaba-ayaa laakiin xaqu wuu hadhayaa. laabudda marka kuwiinu waa inay baaba-aan. iga hormara, guusha ninka ku dambeeya baana gaadha asalkaba. saa darteed ba wuxuu yihi idinku iga hormara buu ku yidhi. markii ay ka hormareen waxay tuureen wax alla wixii ay hayeen oo xadhig ahaa oo ul ahaa oo bakooro jaban ahaa oo sabarado ahaa oo madanayaal ahaa, wax alla wixii ay soo urursadeen oo cayn iyo maraag ahaa oo xadhig ahaa oo dhan iyo guntimahoodii ayay tuureen. way tuureen, dhulkay ku rideen. isku mar baana dhulka lagu dhuftay. hal mar markii dhulka wixii lagu sii wada daayey oo rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay waxaa la moodsiiyey dadkii intay indhahooda sixreen. qur-aanku waxaa cajiib ah hal mas'ale ah
baa qur'aan kala bedelan iyo suurado kala bedelan baa midiba ay meel ka qaada dhigaysaa. suuraddan waxaynan ku marin oo shucare ku gaari doonaa dadka indhihiisiiba horta sixireen nimanku, dadkiibaa horta la qalday. ushii markii la tuuray muuse waxay la noqotay waxaan inuu yahay wax ordahaya. kolkii wixii la iska dhex tuuray, ulihii iyo xadhkihii iyo jin iyo jaankii markii la iska dhex tuuray ayaa muuse waxay la noqotay waxani inuu wax nool yahay, abeesooyin inuu yahay, masas inuu yahay. liannahu ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku qiray sixir weyn bay la yimaadeen, sixir weyn ayay la yimaadeen. markii marka muuse uu arkay wixii ood moodo inuu ordahayo oo dhaqdhaqaaqaya aada moodo, mana dhaqdhaqaaqayo wax ordaya ma ah, ayaa muuse naftiisii wuxuu ka dareemay cabsi. cabsi baa gashay nabi muuse, wuu baqay. markaasaa waxaa lagu yidhi ha baqin. kolkii la tababarayay en maalintii aan soo marnayna waxaa loo raaciyey waxaa tahay adigu kuwa aaminka ah, rususha ilaahay baad ka mid tahay, mana baqaan baa lagu yidhi. ha baqin baa marka lagu yihi muuse, ha baqin. sababtaadan u baqaynin waxay tahay waxaan ay dadka indhahooda sixreen iyo xadhkahoodan iyo ulahoodan waxaa u malaynin waa baatil. baatilkuna mahmaa uu istaago oo uu aada moodo geed weyn inuu yahay, sal uu ku istaago male. asalkabana geedka jiridda salka dhulka gala kaasaa hadha. baatilkuna waa geed dusha ka weyn laakiin xidid hoose ma leh. waa sixir baa lagu yidhi. adaa sareeya, adaa ka sareeya, adduunkaad kaga sareysaa oo rasuul ilaahay uu soo diray baa tahay. guushaad kaga sareysaayo adiga ku guulaysanaya, liannahu waxaad la timid waa mucjizo iyo xaq, allah baa macaaga ah. iyagu waxa ay la yimaadeen waa sixir. sixirkuna wuxuu rabbi subxaana wa tacaala uu yihi asalkaba saaxirku ma guulaysto, asalkaba saaxirku ma guulaysto. doqonnimo waxaa saaxirka ugu filan. ilaahay buu taxaddi kula jiraa, liannahu ilaahay baa wuxuu yihi saaxir ma guulaysto. qofka marka guusha ku raadinaya sixir inuu ku gaadho waa qof ilaahay taxaddi kula jira. saa darteed baa wuxuu noqday sixirku kufri. isagaa kufri ah, barashadiisa kufri ah, falkiisa kufri ah. liannahu waa waxyaabaha xaqa lagu wajaho laga hor yimaado, waa qalabka weligii lagula dagaalami jiray. ambiyada ilaahay iyo rususha rabbi subxaana wa tacaala uu soo diro waa halka shay ee xaq loo ekeysiin karo, halka shay ee xaqa loo ekeysiin karo wey. ayib, wuxuu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay muusow adigaa sareeya, adduunyada adaa ku qaalib noqonhaya, jannada darajooyinkooda adaa ku sareeya, ee ha baqin baa lagu yidhi. ha baqin ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi. qaaluu waxay yidhaahdeen suxaradii yaa muusa muusow, imaa an tulqiya inaad tuurto. waa maxa waxa la tuurayo? casaaka fii yadika, usha gacantaad ku haysato. wa imaa an nakuuna inaanu ahaano annagu awala man kan ugu horeeyo oo alqaa tuurahaya. waxay culimadu yidhaahdeen haddii uu qofku aadaabta laazimo, hadalkaa u fiirsada, aadaabta hadduu laazimo ilaahay baa wanaagga waafajiya. laakiin kolka horeba aadaabta haddaad xumayso karkaarun buu alla kaa tuurahaya subxaana wa tacaala. qoladan suxaradii waxay yidhaahdeen edab bay nabiyullaahi muusa kula dhaqmeen, edabtii bay wanaajiyeen ay muuse kula dhaqmeen. ilaahayna wuxuu waafajiyey subxaana wa tacaala iimaanku ilaahay waafajiyey biqowli laa ilaaha ila allah, buu ilahay waafajiyey. liannahu kolkay soo istaageen muuse mayna caayin, ma aflagaadaynin, waxba mayna odrhanin, mayna u hanjabin. laakiin waxay idhaahdeen muuse caradu hadal mayna odhanin. waxay idhahdeen muuse ma adigaa tuuraya mise annagaa tuurayna bay idhahdeen. khiyaarka yay siiyeen
nabiyullaahi muuse bay siiyeen nabiyullaahi muuse siiyeen waxay idhahdeen sabab waxay u noqotay aadaabtoodaasi iimaanka inuu ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda u geliyo waan gaari doonaa raggaasi shuhadaa baan gaari doonaa gelinka hore iyo bilowga waa suxaara sixirkuna waa kufri hawsha dhammaadkeedana waa shuhado hawsha dhammaadkeeda qaala wuxuu ihi muuse bal alquu idinku tuura muuse wuxuu yidhi idinku tuura buuri samaydan khiyaarka aniga idin siinin soo xilka ma idaani saarin anna idinkaan idinku soo celiyey idinku inoo tuura bilaaba horta hawsha adaa faanay maxay soomaalida odhan jirtay faqsi miyay dhihi jireen adaa bilaabay hawsha xaq baan la yimid oo inaad raacdaan bay ahayd laakiin waad ka hor timaadeenoo taxaddi baad la timaadeen laabudda idinkaa bilaabaya waa masale weyn wey masaladaasi sharcigeena islaamka waa masale weyn wey diinteena islaamka masaladaasi sal weyn bay leedahay sal weyn qofka mudaciga ah iyo qofka mudaco caleyga yaa doodaya yaa se isdifaacahaya bal hadalkaa u fiirsado yaa bayinada laga rabaa yaan se laga rabin haddaad wax sheegato caddayn baa laga rabaa mar haddaad wax sheegato caddayn baa laga rabaa laakiin waan iska sheegtay wayna ii soconaysaa suurtagal maaha qaala wuxuu ihi balle idinku alquu tuura fa idaa waaba isagoo halkaa waxaa ku jira shay maxduuf oo lagaga kaaftoomay sheegidda jawaabtiisii la sheegay oo waa maxay alquu tuura soo lama odhanin fa idaa xibaalhum ba la yidhi meesha maxaa ku jira way tuureen ulahoodii iyo waxoodii ay wateen ayay tuureen fa idaa waaba isagoo isla markiiba idaa fujaa'iya xibaaluhum xadhkahoodii iyo wacisiyuhum ulahoodii yukhayalu la moodsiinhayo ilayhi muusa min sixrihim sixirkoodii xaggiisa laga moodsiin annahaa iyadu tascaa inay roori annahaa xayatun tascaa weeye bimacnaa wixii oo dhan hal mar iskuma qabanin mid waliba waxaanay tuureen baa waxaad moodaa aabeeso iskeeda iyadu ordaysa fa awjasa wuxuu dareemay muuse fii nafsihi naftiisa wuxuu ka dareemay khiifatan cabsi buu ka dareemay muuse wuxuu rabbi subxaana wa tacaala u leeyahay muuse naftiisii waxa uu ka dareemay cabsi saddex tafsiir baa ku jira fa awjasa waa dareemay muuse waa sida aan maray fa admara waa qariyey muuse wuuna baqay baqdintiisii uu baqayna muusan tusin oo oma sheegin oo ma tusin wuu ka qarsaday nabiyullaahi muuse wuu ka qarsaday iyo in la yidhaahdo wajada waa maxay wuu helay saddexduba maxay noqonaysaa waa cabsi naftiisii buu muuse cabsi dareemay cabsi buu ku ogaaday cabsi buu ku qariyey muuse naftiisii waa baqay oo muxuu u baqay muuse wuxuu u baqay insaanka wuxuu ku jublaysan yahay wax laga baqa kolkuu arko inuu baqo nebinimadiisa meel kaga dhac ma aha ayib fa awjasa wuxuu dareemay fii nafsihi naftiisa wuxuu ka dareemay muuse awjasa ficilka faacilkiisii waa muusa khiifatanna waa mafcuulu bihigii fii nafsihi awjasa ayuu ku tacalluqayaa xaggaasi waa xagga luqada naxwada sarfiga khiifatan asalkiisu sidan ma ahayn khiwfatan buu ahaa asalkiisu wuxuu lamid yahay miicaad iyo miisaan asalkoodu waa miwcaad iyo miwsaan 7 mas'alo ee wowga ya-da loo bedelo mid kamida weeye oo waa goorma mar alla markii ay wowdu daba dhacdo bacda kasratin markii ay dhacdo yajibu maxaa waajib ah in loo bedelo wowga in ya loo bedelo baa waajib ah leanna suurtagal ma aha
kelmadda in khiifatan khiwfatan la yidhaahdo culays bay noqonaysaa. miwcaad in la yidhaahdo culays bay noqonaysaa. bisharti waa in wowgaa loo bedelo ya. bisharti waa in wowgaa ya loo bedelo. wow inay meeshan ku jirtay maxaan ku garanaynaa? waxaan ku garanaynaa kelmadda masdarkeedii baan u celinhaynaa. waxay noqonaysaa khawfan bay noqonaysaa. khawfan waxaan ogaanay meeshan asalku wow buu ahaa. faawjasa icraabku wuxuu noqon markaa faawjasa wuxuu dareemay muusa muuse fii nafsihi naftiisa wuxuu ka dareemay khiifatan cabsi buu ka dareemay. qulnaa waxaanu nidhi laa takhaf ha baqin. hadalkan yaa leh allah subxaana wa tacaala. qulnaa waxaanu nidhi laa takhaf ha baqin inaka adigu anta adiga alaclaa kan sareeya ah. kan ugu sareeya mooho iyaguna way sareeyaan. afcalu tafdiilkani laysa calaa baabihi. kan sareeyabaad adigu tahay. adaa sareeya waxbaba iyagu ma hayaan. wa alqi waxaa tuurtaa maa fii yamiinika gacantaada waxa ku sugan. talqaf waxay gurubsanaysaa dafaysaa maa sanacuu waxay sameeyeen. inamaa sanacuu waxay sameeyeen kaydu saaxirin sixir kaydkii weeye dhagartii. walaa yuflixu mana guulaysto asaaxiru saaxirku ma guulaysto xaytu meesha ataa u yimaado. wuxuu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay ilaahay wuxuu ihi muusow gacanta waxaan aad ku haysa ee ushaada ah tuur buu rabbi subxaana wa tacaala yihi tuur. lama odrhanin ushaada tuur laakiin waxaa la yihi gacanta waxaad ku haysa tuur. gacanta waxaad ku hayso tuur leanna ul way ka sarraysaa. wuxuu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay talqaf talaqaf talaqafu qiraa'ooyin fara badan baa ku jira. waxa ay guranaysaa oy si degdega u qaadanaysaa wax alla wixii ay sameeyeen ay la yimaadeen ee been abuurad ahaa. waylakum laa taftaruu cala allahi kadiban fayusxitakum bicadaab. waa kaan soo marnay. waxay sameeyeen wax kale ma aha. ilaahay wuxuu leeyahay waa sixir waa dhagar sixir buu rabbi subxana wa tacaala uu leeyahay. kaydu saaxirin waa sixir. sixirkuna waa dhagar. ma lagu guulaystaa? walaa yuflixu saaxiru xaytu ataa. meel walba oo saaxir yimaado oo uu sixir la yimaado weligii ma guulaysto. weligii ma guulaysto. xaytu waa dharaf. dharafku waa min alfaad alcumuum waa caam. waxaa laga wadaa sixirku soo berigii nebi muuse ma aha. kii berigii nebi muuse saaxirkii ahaa iyo kii ka horeeyey iyo kii waktigii nebi moxamed iyo kadib uu imaan doona iyo ka maanta jooga weligiiba ma guulaysan hayso. weligii saaxir ma guulaysan hayo. makaan walba oo la yimaado ma guulaysto. wakti walba oo uu yimaadana ma guulaysto. nooc walba oo sixir ah uu la yimaadana kuma guulaysto. saddexdiiba wuu camimaya. sixirkii laftiisii wakti kasta uu yimaado iyo zaman kasta ama goob kasta makaan walba uu kula yimaado weligii guulaysan maayo. weligii guulaysan maayo bu rabbi subxaanahu wa tacaala uu yihi. fa ulqiya waxaa la riday asaxaratu saxaradii sujadan saajidiina xaalahin kuwa sujuudsan. qaaluu waxay yidhaahdeen saxaradii aamanaa waxaanu rumaynay birabbi haaruuna haaruun rabbigii wa muusa iyo muuse rabbigood. wuxuu rabbi subxaana wa tacaala uu leeyahay fa ulqiya saxaratu sujada. ilaahay wuxuu leeyahay saxaradii dhulkaa lagu riday. maxay dhulka uga dhaceen? bimacnaa ilaahay dartii bay u sujuudeen. kolkii wax alla wixii ay la yimaadeen oo dhan ay ushii guratay nag ay ka dhigtay. ilaahay cilmigiisa insaanka su-aal badnidiisa bal u fiirsada. waxaanu ihi wax alla wixii xadhig ahaa oo dhan yaa gurtay. ushii baa guratay soo maa. ushii waa ushii nabi muuse gacanta markuu qabtay caadigeed usheeda bay ku noqotay. xadhkii markaa away ma ushii bay caloosheeda ku jiraan xadhkii miyay soo tuftay ma meel kale ku tuurtay maxaa kaa galay adiga?
faa'iidada kuugu jirtaa waa maxay xarigii way guratay oo way cuntay baa lagu yidhi bal xageebu xarigii ku dambeeyay xageed kaga jawaabaysaa ma ilaahay baa noo sheegay meeshu xarigii ku dambeeyay ma ilaahay baa noo sheegay maxaan ka baaraynaa ma aayad quraana buu ahaa kolkii horeba sixir xun xarig xun oo lala yimid buu ahaa ilaahay baana baabiyay inna al-baatila kana zahuqan ma baatil baa la raadiyaa baatilka lama raadiyo waa la aasaa lama raadiya baatilka طيب qurtubi wuxuu leeyahay meeshay ku dambeeyeen war uma hayna buri cir'idul meelay ku dambeeyeen waa runtii waa hadal saliim awey meeshay ku dambeeyeen maxaa ka galay adiga sixirku laguma guuleystay iska ilaali xaqana taxaddiha la gelina raac hada huwa al-ma'mur amma xageebay ku dambeysay waa bila macno laan way waa kalaam faariq way suxaradii waxay yiraahdeen kolkay arkeen xarkihii iyo wax alla wixii ay la yimaadeen nimankan wax alla waxay iska hakradeen ma jirto wax kasta way sameeyeen wax walba oo bilow aadan keeni karo oo aqli lagu keeni karo oo cilmi lagu keeni karo oo xeel lagu keeni karo oo khiyaano lagu keeni karo geed dariye geed gaaban u fooleen nimankan niman sixirka yaqaan bay ahaayeen oo waaweyn oo khatar ah halkan u sheehe ee yar kolkay wixii guratay isla markii waxay ogaadeen waxani inuu xaq yahay sixir uu sanahay bay ogaadeen isla markiiba waxay yiraahdeen aamanna bi rabbi Musa wa Harun aamanna bi rabbil alamin banu rumayn Musa iyo Harun ayaan rabbigood rumaynay hadda Musa u shatuur lalaha haddana jawaabtii gadaal waxa ka soo baxday waxay yiraahdeen Musa iyo Harun ayaan rabbigood raacnay horay baa waxaan idin soo iri mar hadii 100 qof aatihiin oo hal qof uu hadalka bixinayo xukunka kaasi rido kulli 100 ka walidinku oofinaya saadarteed qof muslim ah 10 qof haday isugu tagaan oo dilaan waxa lagu sameeynaya 10 koodiiba 10 ku qorta laga goyn maayo ilaa way wada dileen xukunka wadaageen risaalada wada xambaarsan yihiin kii la sheego kale waa laga kaaftoomi karaa waxay yiraahdeen Muuse iyo Harun rabbigooda aanu rumaynay qaala wuxuu yiri ninkii fircoon ahaa amantum yaydun rumayseen amantum isma meesha ku amantum yaydun rumayseen lahu Muuse damiirka daniya loo celiyay Muuse kaligi qabla an aadana intaana idin idmin lakum idinka ajiib innahu isagu Muuse lakabirukum kini ugu weynaa weeya alladhi kaasoo callamakum idin baray as-sixra idin baray qadiyadii markii ay wax alla wixii uu soo urursaday ee suxaraa ee islaha uu ku difaacaya ee uu ku soo dagaal tagay ee leeyahay dawladda ka mid tihiin oo waa la idin soo dhaweynaya oo ujra la idin siinaya leeyahay kulligood kolkay muslimeen ila ragani waa rag wadaadaha dawladda waa Soomaaliya dadko dhanna way raacayaan hawshii dhinaca kale u rogay siyaaso oo wuxuu yiri ha ma aanoon idin amrin oon idin oranin baba Muuse raacdeen badartaani weydiisataan miyadun iska raacdeen yaa idin fasaxay ma xaq baa fasax u baahan asalkaba ashyaada laba in loo kala qaado baa qurux badan shay waa xaq shakhsi bilow aadana ugama baahna shayga xaqa ah su'aalina weydiisato xaq baad u leedahay ayan kana xaq u yahay shaygani waa adduunyo iyo waxaan aqeedadaada qusaynin xaq baad u leedahay inaad weydiisato oo idan aad ka talabto qofaad gurigiisa rabtaa inaad gasho meedalaan baad iska gali kartaa la ilaaha illa allah miya idan u baahan waa maya salaada tuka miya idan u baahan waa maya ma jirto idan u baahno saadarteed baa qofku shay amaraha oo waajibo ilaahay uu bixiyo haduu ka hor yimaado gaal cad weeye gaal لأنه أمر إلهي وبحيه سبحانه وتعالى واجبنا وحاهد إلا فليه wuxuu yiri ma anoon idin fasixin baydun raacdeen walle buu yiri walle wabad dhagarteen illa warba uma haye rag ilaan iyagu iswato oo walaalo saaxiibo arday iyo macallinkoodii weynaa abaabilan aniga laba group isaga ka dhigay fariido Muuse buuri waa ninkii sixirka idinku weynaa maxaad idin lugeynaysaa ilaan arday xun baad ahaydeen illa ninku waaba ninkii sixirka idin baray saa darteed ba tartan markaad gasheen buu idin ka badiyay
anaabaad ii tashateenba oo wuu idinka badiyey waxba maydaan soo qabanin maydaan shaqaynin hawshii la idin diray maydaan qabanin ko talabaadna ummadii baa rabtaa inaad igu hor keentaan ood igu dirtaan ayib maxaad samayn marka waa yahay waxaan samaynayaa fala uqaطicana gooye oo gooye aydiyakum gacmihiina iyo arjulakum lugihiina min khilaafin iswadaar gooyo walee gooye oo gooye buri waad ogaan doontaan lugta midig iyo gacanta bidix baan idin jarayaa buri isweydaar baan idin jarayaa ko wala usallimanakum naftaan idinka saas horta nafta ku dhimanaysa bay naftu idinkaga dhacaysaa kolkaan dhimanana wala usallimanakum idin salbiye fi juduuci nakli geedaha salkooda timirta salkeeda geedka laamihiisa walla idinka sure tiir walla idinku sure daldalid baa la yidhahdaa af soomaali waan idin daldalahayaa qofka markii intii la dilo tiir laga lulo ule saasaan idin gelayaa buuri ciqaab miyaa idin dhiban marka waa maya idinkoo nool baan xubnaha idin jarjaray waa ko naftu markay idinka dhacdayna la idin xabaali maayo oo bimacnaa naftu horta idinkoo lugta iyo gacanta go-an oo cuntada la idinka jaray nin walba suusaa u yahay oo u dhiig baxaya oo rafaad buu naftu kaga dhacaysa albuuru markuu go-o ko nafta horta idinku silciyey markaad dhimataana meydkiina si sharafla loo aasi maaye dadka idinka dambeeya si ay darsi ugu noqoto halkaasaan idin surayaa halkaasaa la idinku fiirsan doonaa saasaan idin gelayaa bui raggii wadaadaha ahaa ee dawladda wadaadada u ahaa wey wala taclamunna waad ogaan doontaan buri ayunaa kaanagee ashadu daran cadaaban xagga cadaabka wa abqa baaqihasho badan soo midaan odhan aamanaa birabbi muusa wa haaruun aamanaa birabbi alcaalamiin muuse rabbigan uu sheegan hayo iyo aniga midka ciqaabta iyo cadaabka kulol waad ogaan doontaan maxaad u cararteen soo cadaab baanu ka cararaynaa ma aha way soo socotaa waxay ka carareen waad ogaan doontaanba kaanaga cadaabkiisu uu xanuun kulul yahay oo cadaabkiisu werigii uusan dhammaanaynin waad ogaan doontaan bui hanjabaada intaa la eg buu hanjabay raggaasi marka maxay sameeyeen way soo socotaa intaynaan aayaadka dambe gaadhin ninka fircoon la yidhaahdo muuse oo markuu dhashay uu ogaa isaga laga qarinhayay muuse oo keligii beertiisu sanduuqiisa oo ku jira u keenay kusoo daray uu soo korsaday nimankii odayaasha ahaa ee suxarada ahaa ee weligii muuse hortii suxarada ahaa kolkii la isqabtay ee laga guulaystay dadka hortoodiibu wuxuu ku yidhi waa macalinku weynaa sixirka idin baray ma oga miyaa inuusan barin raggan mise wuu og yahay bal muuse oon dhalanin bay raggani suxaro ahaayeen wuxuu hadalka u leeyahay siyaasinimo iyo afmishaarnimo oo waa maxay dadkiisoo meesha la isuguma keenin soo yowmu zina maaha soo xaq iyo baadilkii ma kala bixin soo suxaradii maynan kulli wada sujuudin dee dadkii meesha wadaadaha ahaa ee ummadda indhaheeda ahaaba mar hadday meeshan waxaan raaceen ummadda inteeda kale maxaad umaleysaa shacabkii waa ka daran yahay soomaa uu kasii horeeya kuwan waxba lagama qaban karo liano iyagu xaqii bay arkeen oo iyagu waajibkoodu waa qoorta in horta midida laga aslo laakiin shacabkii laftiisu soo raggan waxa loo leeyahy waa xaq soo odhan maayo xaqa waa in ciid la marmariyo marka waa in ciid la marmariyo wuxuu yidhi sixirka isagaaba idin baray buuri dadkanuu rabaa wax magaratada inuu shaki geliyo inuu ka dhaadhiciyo waxani inuu yahay wax raggan isla soo ogaa ka dhaadhiciyo ilaan dadka meesheedu waxba war uma hayaan tartan baa maanta la gelahayaa bas yaa guulaystay basa baa la sugahayaa way ujeedaan markay cidda guulaysatay laabudda marka waa in dacwadii risaaladii la marmariyo burush qaldan waa in la mariyo saa darteed ba wuxu uhi waa macalinka ugu weyne sixirka idin baray waanad ogaan doontaan lugaha iyo gacmaha haddaanay isweydaan idiin goynin buuli qaaluu waxay idhaahdeen lan nu'thiraka kaama doorayno calaa maa jaaanaa waxa noo yimid korkiisa min albayinaati xujooyin cadcad xaal u ahaaday jaara majruurkaasi shay maxduufa buu ku tacalluqayaa iyo waladii kii xaggiisana kaa doori mayno waa icraab fataranaa na abuuray annaga na abuuray ee faqdi xukun maa shayga anta adigu qaadin mid xukumaya aad tahay faqdiihi maa anta qaadiyun
إنما أدق تقضيه واحد حكوميسا هذه تن الحياة نرشي الدنيا إلويت وما الماء محي ما الماء نقطريسا waxay yiraahdeen raggi markii loo hanjabay oo lagu yiri walle waad ogaan doontaan hadaana lugaha iyo gacmaha isweydaan idin jarin hadaanan meydkiinana halka surin geedaha idin ko nool aan musbaar idin surin nafta halka idin kaga dhacdo waxay yiraahdeen dhageyso lan nu'thiraka lan nakhtaraka kama dooran hayno waxa noo yimid oo xujooyin cadcad ah yaqiinta iyo cilmiga waxa noo yimid wallayna lan ka dooran haynin adiga kuma rabno ilaahi baan dooranay subhanahu wa ta'ala haqqan ra'nay la ilaha illa allah bayrahdin ama adiga soo noomaha jabaysid kana idinku sameyn soo baqbaq laba wardaysid faqdi ma anta qad hukum waxad xukumayso wax alla waxad xukumayso adigu xukum bayrahdin liana xujooyin cadcad baan u jeednaa anaga xaq og waxba garan maysid aamus wax alla waxad rabta samee soo nooma goodiyaysid soo nooma hanjabaysid horta ma aakhiraad ka hadlaysaa iyo nolol aan weliga dhamaanaynin ciqaabtaadu ma halkaasa mise wa noloshan adduunyada inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya noloshan yare adduunyada baad adigu xukumaysaa wax yar intay naftu nagu jirto intaan way xanuun ku xandareemayna bas naftu markay naga dhacdo waa dhamaatay xanuun damba male ciqaab dambe male halkaas ku dhamaatay kadibna ilaahi baa subhanahu wa ta'ala hortagana jannatan dabaalanayna laakiin adiga hadaan ku doorano on xaqa iyo iimaanka ka kufrino ilaahi subhanahu wa ta'ala baa waligina cadaabayo oo ciqaabayo nolosha aakhira waligeed ma dhamaato nolosha aakhiro waligeed ma dhamaato ilaahi qofka rumaysan ee alla inuu hor istaagayo rumaysan adduunya lagu sameeynayaa kan oo cirki iyo dhulka laga qarin iyo waa lagu jarjari iyo saliid kulul baa lagu dhaxridi iyo waxaas indhihiisu ma arkaan laakiin waxay arkaan nolosha aan dhamaanayn wal aakhiratu khayrun wa abqa inna bidahdan sabatu waa maxay inna annagu amanna waxa nurumaynay bi rabbina rabbigana nurumaynay sabab ليغفر إنه نور ضاف لنا أنك خطايانا جففك نجينو نور ضاف وما كينا إنه نور ضاف أكرهتنا أنك قصبت عليه كركس ونضر قضي نفتي بعد نوكنتي ومن السحر سحر والله إلهي بانا خير بدن ثواب الله بمشى كجرته الله ثواب كيسا خير بدن وأبقى باقي عشان وحنا النوية وهيسو وأدويو waxay yiraahdeen sababta aanu saa ku leenahay oo aanan u baqaynin warhooy ilaahi anaga rabbigana ah waan rumaynay waxaan ka doonaynaa ilaahi dunuubtanadii inuu ilaahi dhaafo baanu doonaynaa laana qofkii dambigiisa la dhaafo waa guuleystay hadafka uu qofka muuminka yawman wal laylan u ordayo waa inuu ilaahi dambigiisa dhaafo waa ko wixii adigu aad nagu qasabtay ee sixirka ahaana inuu ilaahi noo dhaafo rabnaa أذان قصبي سحر ما نربين لأنه نيك مركي للتلي محل السحرة صو أروري ولا صو أروري ولا لا شري قرقور تنبال لا جلي ولا دقي العقب الله شيء إنسان كنا حكم كوب العقد تكجي عليه وحال الوال إذا سورنا وين يابا رجع الدولة دي كمان دقون إنسان وادنا قصبتي ولا نيو وادنا قصبتي لكن واحد كوش شيء إن إلهي ثواب كيس أنه رجينا إنه أياك خير بدن محي وحي إلا خير كو أفعل التفضيل وأخير اسمه تفضيل وي وأخير ولا فضيلية تخفيف وي وروحد نوشيكتي أو جاه أو مدحت النماء أو حولاء أو من المقربين كل وحا كخير بدن الله وحا اكتيسا يالله ثواب وحا وحا دمانا يوي لكن إلهي اكتيسا وحا يالله سبحانه وتعالى وليقي مدن ماضو إمسا انتو حاكم ظالمه مفتكا صدي أو وحقلوعيي مال ما يركدب قد مدو لا دغ قبر مدو لا دغ امسا وبدن يحي انه شأن يحاله من ياتي قفك يماد ربه ربي ويماد مجرما قال اسقوا تفسير كاساسا ku qurux badan قال اسقوا in la yiraahdo وعاصي ودنبيلا وتفسير kale laakin qaar ka dambe aayada waxay qiraysaa قال in laga wada mujrimkaas
فإن له وحا هذا جهنم نارت جهنم اللي يرهدو لا يموت كما دنت فيها جهنم دحديدا ولا يحيا كما نولاده وليجيبا إلهي وحو إليه سبحانه وتعالى شأنك إيا حالك وحا وياي هذا الكلام ما هذا الابتداء هو عصب وكلام الله أبا مسوى قولدي السحرة هل ليس لبضا واحتمالا وحن كدغينا هذا العصب والله سبحانه وتعالى إنه يه إلهي وحا إليه شأنك إيا حالك وحا وياي صادرت الحقوق أصبحت ضميرك أنا ضمير شأنك كدغتو خفك ربك أي مادة مالنت يوم القيامة وكلهم آتيه صوما لما هو بدي ما نيسان آتي الرحمن عبدا مدول بيسوق دون إله إيمانيا إلا إيمان شككم يجرو لكن لو مدن بعضو إيمان يسا إما إن الجروب كان هو ركوتي مادو مجرم أديقه إما أضو مؤمن وعمل وناكس اللي يمد إن الله تماد والله بعضهم مدن لكن إلا واد إيمان يسا قف كي يمادي ربي ويمادي يسوق أو قالوا بي أو إلهي ككفري أو إلهي أقونين دم بلا نار جهنم اللي هذا بأبل قد كيسا نور متى الله جيريس متى الله مايا لا ضبا وراحو نولشو هداي نولل wanaagsan oo dhadhan la tahay waraaxo geeriduna haday naftuba ka dhacdo hada waa ka ay qoladii suxarada kolkay rumeeyeen ilaahi ay leeyihiin oo ruuxani aad xukumayso nolosha adduunyo laana waa wax dhamaanaya weey laakiin ka war hadayna geeri aan walmidna baaynaan ahayn mana dhimanin mana nooli waa xaalad ugu daran weey xaalad ugu daran bimaana waxa laga wadaa la yamuutuna naftu kama dhacdo oo meejidkoodi ma noqonayaan ilaahay xanuunka ka raaxaystaan nolol la tirsan karana ma noolo ma qof dab dhax fadhiya baa nool maya nolol ladda iyo macaalana ma noolo naftiina wali way ku jirtaa kama dhici wixii loo dhimanayo dhanna uu ku dhacay laakiin naftu wayna dhacaynin naftu kaasi waa kow ومن غفك يأتي يماد مؤمنا يسوى مؤمن إله ينبي رمي ما انت كلي على غاربا ما قد عمل وقد عمل يسوى سميي الصالحات أعماش ونكسن فأولئك كوا لهم وحاوا هذا الدرجات العلى درجوين كسر ريبا وهذا إلهي وحو لي أما قفك يماد سوى لي النبي رمي والرب وحو سبحانه وتعالى أمر إليمت والرب وحو أدي ذي كبير هذا وعمل وناكسن كدري برب سبحانه وتعالى أوليه عمل وناكسن كدري كواسي درجات سرية بجنة الأحداث إليه درجات سرية جنة يقليان قليدو كليا اللي قد دين مايو درجات ذا كر لو قاضي يا جنة الأحداث جنة ما لقد انتهى ما لقد سعته هذا ما لقد تجا مايا جنات عدن بيقليان كوا جنات عدن باؤ هذا كبدل تجري حال يقول ليس من تحتها عدن إذا الجنة هوستيضة الأنهار وبيال خالدين حال يكواريان فيها جنة دحديضة أبل قدك يالي وذلك كاسي جزاء من قف أبل قدك وي تزكى نفتي سطهيري إلهي وحو ليه وحي كواريان أو هذا جنة اللي قلنا قادو لغا مدنتو لغا مسعطو لغا محنونصدو لغا مجيريودو ولي جدبا وحو رب سبحانه وتعالى الوبيال باهوس قلقلية وبيال قريه هذا بيره هذا جيده هذا وبيال باقلقلية كوا خمرئة كوا عاناء كوا ملبة كوا بياه أيا هوس هذا قلقلها إلهي وحوري ولقود يكوارها خالدين فيها ولقود يكوارها أبدا إلهي وحوري لكن ذاتكور ما بالقد كيسو نوعه وذلك جزاء من تزكى كاسواء بالقدك قفك النفتي سطاهر قد أفلح من تزكى وقفك النفتي سأدونك مركو جوغ استاهري أوامحي وقفك كفرك شركك قرنك معصية وحو البو إلهي خلاف كيسا قفك اسكطاهري وقفك النفتي سكل ليلي ومريي وحو البو إلهي وأمري سبحانه وتعالى لا يمد وحي وأوذي كري والله سبحانه وتعالى أعلم